Kusoo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkeena maanta aan kusoo qaadan doono bilowgii fanka casriga Soomaaliga. Cabdi Deeqsi Warfaa oo ku magac dheeraa Cabdi Sinimo waxa uu ahaa ninkii ugu horreeyay ee bilaabay heesta balwadda ee muusigga leh. Cabdi Sinimo waxa uu darawal ka ahaa gaari xamuul ah oo kala gooshi jiray magaalooyinka Boorama, Seylac iyo Jabuuti. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa uu Cabdi Sinimo ka soo baxay magaalada Boorama ayaa uu gaarigii uu watay dhexda xumaaday. Dabadeedna inta muddo ah ayaa uu dhexda ku sii jiray. Kolkii gaarigii uu hagaagay uu yimid magaalada Seylac, xilligaas ma aanay jirin marfashyada lagu qaylo, sidoo kale ma aanay jirin guryaha lagu qaylaa. Waxaa adkayd in aad dumar ah oo aad maraysa aragto. Sidaa darteed Cabdi Sinimo islaan leedahay ayaa u fadhiistay, waxaana guriga joogtay inan la odhan jiray Indho-cad. Inantaas ayaa uu islaanta ku odhan jiray Cabdi Sinimo waan kuu dhisayaa, sidaa ayaa